halkan waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxa ku soo badanaya carruurta da'adoodu ka yartahay 5 sano ilaa ildaran nafaqo darrida iyo cudurrada kale ay u nugul yihiin carruurta Soomaaliyeed. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa si lacag la'aan ah loogu daweeyaa hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxaana uu leeyahay qaybo kala duwan. Waxaa ka mid ah qaybta bukaan jiifka, qaybta bukaan socodka, qaybta shuban biyoodka, qaybta ay ku umulaan haweenka Soomaaliyeed, qaybta lagu carruurta biladhimanka ah ee dhasha iyo qaybo kale aad u fara badan. Carruurta ay haysato nafaqo darrada ee lagu daweeyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa gaarayay in ka badan 9 carruur ah, kuwaasi oo laga kala keenay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana qaybtan lagu daweeyo carruurta nafaqo darrada soo ridata ay leedahay qayb lagu wacyigeliyo haweenka ee loo yaqaano infant and young child feeding, quudinta carruurta aad u yaryar. Isbitaalka Banaadir ayaa hoos taga wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. 4 sano ee la soo dhaafay ayaa isbitaalka waxa uu sameeyay horumaro kala duwan oo uu ka mid yahay dhismo cusub ah oo lagu ballaarinayo qaybta lagu daweeyo carruurta nafaqo darrida la ildaran iyo qaybo kale. qaar ka mid ah haweenka la joogo carruurta la ildaran nafaqo la'aanta oo qaarkood laga keenay gobolka Shabeellaha Hoose sida degmada Shalambood, Janaale iyo deegaano kale ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin carruurtooda. magacayga Dawlay Cabdi Ibraahim, cunuga gobolka aan ka keenay Doonbaraale. maasha Allah, markaas iga xanuunsaday bahal jadeec la dhahaa u dhuumatay. jadeecadiina waa ku garan wayne muddo badanaas iga xanuunsanay, muddo 3 biloodaas iga xanuunsanay. Faaduma Moogow Usmaan. Faaduma Moogow Usmaan onagaan hore baadiye meel washaaq la yiraahdo ka keenay kadaashaana abaar iyo burs beerhayna biyo male. Dr. Maxamed Ibraahim Salaad oo ah madaxa qaybta nafaqo darrada ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay xaaladda carruurta xilligan jiifta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. kiisaska ay badan yihiin ilmaha nafaqo darrada waxayna badanaa ka yimaadeen goboladan magaalada u dhow sida Shabeellooyinka, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. marka gobolada badan gobolo kale xataa way ka yimaadeen. horta daa walba isku jireen daayaasha ugu badanna waxay u badan yihiin ilmaha 6 bilood ka weyn ilaa ilmaha oo 5 sano ka yar. agaasimo ku-xigeenka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ahna kusimaha agaasimaha isbitaalka Dr. Amina Sheekh Xasan ayaa ka warbixisay carruurta ku jirta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee la ildaran xaaladda nafaqo darrida. guud mar walba caqabadana hortaagan oo nagu soo noqnoqdo ugu badan waxay tahay nafaqo darrada. ilmaha ayagoo xanuuno kala la tacaalaya oo qaba ay haddana waxay qabaan nafaqo darro. marka mar walba anaga waxaan ku dadaalnaa si ilmaha aysan nafaqo darradaas ugu soo noqon. hadiiba mar nafaqo darro loo soo jiifiyo in hooyada wacyigeeda kor loo qaado, aqoonteeda la dhiso. qayb IYCF aan leenahay oo ay u diyaarsan inay wacyigeliyaan hooyada, ay baraan naas nuujinta barax tiran sida ay tahay, ilmaha quudintooda sida ay tahay marka ay gaaraan in la quudiyo 6 bil ilaa iyo wixii ka weyn, iyo cuntada la siin kara nooca ay tahay iyo qaabka lagu siin karo si cunugii mar nafaqo darro uga noqdo uusan mar kale uga noqon, ilmaha guriga u joogana aysan nafaqo darro aysan u saameyn. waxyaabaha ugu badan oo wajahayna waa nafaqo darrada ubadka Soomaaliyeed haysata. carruurta ugu badan ee ay haysato nafaqo darrada ee ku jira isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxa ay ka kala yimaadaan qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaa ku soo kordhaya carruur aad u fara badan oo lagu sheegay 95% ilaa 90% tiro gaaraysa, halkaasi oo lagula tacaalayay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.